asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. adduunyadanaan joogno waxaa jiro waxyaabo la tirin karo uu eebbaweyne la soo dejiyey nebiyullaahi aadam calayhi salaam, kuwaasoo asalkoodii jannada ka imaaday, muslimiinta badankoodna aynan ogeyn. marka fiidiyowgan ayaan idinkugu soo kulminaynaa wax walbo dhulka dul saaran oo asalkoodii jannada ka imaaday ee nala soco. intaanan soo gudbin ka hor ha ka tegin adoonka subscribe saarin gambalaalkana furan. xajarul aswad macnaheedu waa dhagaxii midooba. waxaa lagu arkayaa tiirka koonfur bari ee kacbada ku dhex yaallo ee bannaanka xaggiisa, waana meesha dawaafka ka bilowdo kuna dhammaado. rasuulkeena salaallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi alxajarul aswad min aljanna, taasoo macnaheedu tahay xajarul aswadka wuxuu ka imaaday jannada, dhagax midooba wuxuu ka imaaday jannada, ama waxaa laga keenay jannada. arrinta ugu badnaan muslimiinta isweydiiyaan waa midabkiisa. waxaa hubaal ah in midabkiisa ahaa mid cad markii jannada laga keenayey. saxaabiga ibnu cabbaas waxa uu ka wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam nasala xajarul aswad, nebiga sal slam ayaa waxa uu yidhi nasala xajarul aswad min aljanna annahu abyadu min althalj fasawadathu khadaaya bna aadam. waxaa la soo dejiyey xajarul aswadka jannada ayaa laga soo dejiyey asagoo ka cad barafka, waxaa saas u madoobeeyey fasawadatu khadaaya bna aadam, gafafka bini aadamka iyo khaladaadka iyo dembiga ayaa saas u madoobeeyey buu yidhi nebiga sal salam. dhagaxa taabashadiisa iyo salaantiisaba waa fadli ama ajar, waxa uuna kaa tirtirayaa ama ka tirtirayaa qofka muslimka gafafka iyo dembiga. cabdullaahi binu cumar waxa uu rasuulka ka wariyey in nebiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam anna masxa alxajari alaswadi waalruknu alyamaani yaxutaani alkhadaaya xaqan, taasoo macnaheedu tahay taabashada dhagaxa madow iyo tiirka midige ee ku dhex yaala kacbada in ay gafafka dhaafayaan. markii taabatidba in gafafkaada ay kaa tirtirayaan oo ay tirtirayaan si dhab ah. nebigu ama dadka aan muslimiinta ahayn waxay u maleeyaan in muslimiinta caabudaan dhagaxaas, sidaas ayay diinta islaamka uga cararaan ayaa la is yidhaahdaa badana. sidaasna ma ahan xaqiiqda. amiirka muslimiinta ee cumar binu khadaab radiallaahu canhu waxaa laga wariyey isagoo qaabilay ama hortaagan dhagaxa inuu yidhi innii la aclamu annaka xajarun laa tanfac walaa tadur, innii ra'aytu rasuula allaahi yuqbiluka maqbaltuk. yacni waxaa laga wadaa waxaan ogahay inaad tahay dhagax aan waxba gelin waxbana goonin, yacni laa tanfac walaa tadur, waxbana imasiis waxbana igama dhibi kartid. innii ra'aytu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam, keliya waxaan arkay rasuulka ilaahi subxaanahu watacaala oo ku qaabilayo oo madaxiisa iyo wejigiisa kusoo xijinaya ee kuma qaabilin buu yidhi cumar bin khadaab, taasoo macnaheedu ku caddaynaysa dee dhagaxan inuuna waxba gelin waxna gooyin, keliya dhagaxu naftirkiisaba iyo eebbaweyne uu abuuray oo jannada laga keenay. cumar radiallaahu canhu waxa uu dadka u sheegi jiray in qaabilaadda iyo taabashada iyo salaanta dhagaxa looga dayanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam ee dhagaxa aan la caabudayn. sidaasoo kale dhagaxana waxba uuna gelin waxbana uuna goynin, ee dhagaxaba eebbe uu abuuray, cibaadada iyo caabudaaddana eebbe keliya uu leeyahay. midda saddexaad, labada webi waa anniil waalfuraad, waa labada webi oo la kala yidhaahdo anniilu waalfuraad, labada webi ee ugu muhiimsan afrika iyo jasiiradda carabta. labadan webi waxaa lagu tilmaamay inay yihiin laba webi oo dhammaystiran. waxa uu rasuulka inoo sheegay kadib soo dejintiisii ee laga soo dejiyey habeenkii al-isra waalmicraaj la magac baxday ee nebiga sala allahu calayhi wasalam samada loo dhelmiyey, inuu kadib uu yidhi markii laga soo dejiyey ina nahra anniili waalfuraati asluhumaa min aljanna, taasoo macnaheedu tahay webiga niil iyo webiga furaad asalkoodii waxay ka imaadeen buu yidhi nebiga sal slam min aljanna, jannada ayay ka imaadeen buu yidhi.
wuxuu rasuulka inoo sheegayaa in uu arkay 4 webi markii leelatul isra wal mi'raaj lagu guda jiray ayaan ku hadlaynaaye waxa uu arkay 4 webi 2 way dahsoonayeen 2na way muuqatay asalkoodiina markaas jannada ay ku dhex yeeleen waxa uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam uu weydiiyay waxaan weydiiyay buu yiri jibriil alayhi salaam maxay ahaayeen webiyadan markaasuu jibriil oo malaa'igta ka mid ahaa waxa uu yiri ku jawaabay labada webi oo dahsoon ama qarsoon jannada ayay ku jiraan labada webi oo muuqatana waa webiga niil iyo webiga furaat webiga niil sidaan ognahay wuxuu maraa qaaradda Afrika sida wadamada mara waxa ka mid ah Itoobiya Suudaan iyo Masar iyo webiga furaat oo mara jasiiradda Carabta sida ku cad Sahih al-Bukhari iyo Muslim nabiga waxa uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inna asla an-niil wal furaat asluhuma min al-jannati wa innahuma yakhrujani asla sidrati al-muntaha thumma yasirani haythu sha'a Allah thumma yanzilani ila al-ard taasoo macnaheedu ay tahay asalka labadan webi inay ka imaadeen jannada ayna ka soo baxayaan ama adduunka uga soo baxayaan meesha u dhow asla sidratil muntaha meesha la dhahayo thumma yasirani haythu sha'a Allah halkaasoo soconaya ilaa intuu Ilaahay ugu talagalay ayna soo degayaan dhulka ayna marka waxa halkaas inooga cadin labadan webi asalkoodii jannada ka imaadeen midda labaad waxa weeyaan maqaamu Ibraahim waa dhagaxii uu ka istaagi jiray nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam markii bilowgii iyo koryeelidii iyo dhisitaankii iyo dhisidii tiirarka Kacbada aynu u xajino ayadoo lagu taagay caqiidada islaamka ee lagu weyneynayay waxaa la wariyay in dhagaxan uu jannada kala soo degay nabiyullaahi aadam alayhi salaam markii adduunka la keenayay in dhagaxan oo adduunka lagu soo tuurayay ama adduunka ku soo degayay nabiyullaahi aadam alayhi salaam in dhagaxan uu la socday rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu dhahay ar-ruknu wal maqaamu yaquutani min al-jannati damasa Allahu nuruhuma ولولا ذلك العذا أتى ما بين ودغح كعبده كدخ يالو oo badana maqaam Ibraahim la yiraahdo nabiyullaahi Ibraahim waxa uu isku howlay ama isku mashaqeeyay koryeelida dhagaxaantaas labada dhagax xajarul aswad iyo maqaam Ibraahim dhagaxa la dhahayo waxa uu ahaa mid dhagaxaas ku istaago dhagaxa dushiisa oo haddana dhisay Kacbada nabiyullaahi Ibraahim dhagaxaasna waxa uu ahaa mid uu dushiisa ugu istaago aadaanka iyo yabaha salaada iyo gudashada xajkaba dhagaxaas ayuu ku istaagi jiray oo markii uu adimayo iyo mar alla marka uu muslimiinta ku boorinay inay xajka gutaan nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam dhagaxana waxaa ku yaala raadkii labada lugood ee nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam kadib taabashada ummadda islaamka oo dhalisay in uu qarsoomo labada lugood raadkoodii وقال الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى يعني وحا مسلمين maanta ay ka dhigteen meeshay u tukadaan min maqaami Ibraahim waa maanta meesha loo tukado oo muslimka ilaahi islaamka muslimiinta oo dhan بين المشرق والمغرب كان koonfur iyo bari kala joogo meesha soo wajahaan min maqaami Ibraahim weeyaan wallahu akbar koobaad waxa weeyaan ayadana aan rabnay inaan ogaano oo jannada ka imaaday tamrul ajwa timirta la dhahayo tamrul ajwa waa timir sidoo kaleeto timirtaan oo adduunka ka mid ah kama helaysid ilaa madiinatul munawwara mooyee waxaana lagu sheegaa cunto la cuno midda ugu fadli badan gabi ahaanba Abi Hurayra waxa uu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri al-ajwatu min al-janna wa fiha shifaa'un min as-summ wal-kam'atu min al-manna wa ma'uha shifaa'un lil-'ayn al-ajwatu timirta ajwada la yiraahdo taasoo ma in macnaynayna al-ajwatu timirta ajwada la yiraahdo inay jannada ka imaado min al-janna وفيها دحدادا وحا أبو النبي صلى الله عليه وسلم
shifaaun min asum, waxay caafimaad u tahay sunta qof. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سبحانه وتعالى وحو يري من تصبح ب7 تمرات عجوة لا يصيبه في هذا اليوم سم ولا سحر. قفك مركو بريستو أما الصباح دي وبريستو كوا بريستو أما عنو تضبحب وتمرتاسا تمرت عجوة اللي لا يصيبه في هذا اليوم مالين كاس لن وحما ما أسيبيان سنية سحر بوح الله لوح أسيبه ملان بو النبي صلى الله عليه وسلم يري. أوكي waxaan marka sheegaynaa timirtan cajwada waxyaabaha cunooyinka kale ta dheertahay ama faa'iidada ay leedahay. waxaa kamid ah faa'iidada lama soo koobi karo, laakiin wixii aan awoodno Ilaahna karin si aydan kaga soo gudbinayna. cunitaanka timirtan waxaad uga badbaadaysaa sixirka, sunta iyo dhaawacyada jirka oo kaleeto. waa number 1. number 2 cunitaanka 7 xabadood ee timir ah muddo bil ah waxaad uga caafimaadaysaa cudurrada jirka ku dhaca. number 3 waxay u sahashaa dumarka ama ka caawisaa dhalmada. waxaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayaa oon ugu duceynayaa qof kasta oo muslim ciddo ku leh, naftayda iyo naftiinaba ilaahayow waa naga xarimin gelitaanka jannada. ilaahayow noo sahal jannada. qof kastoo muslima jannada ayuu raadiyaa. ilaahay subxaanahu watacaala jannada ha noo sahlo. ilaahayow adigaa qafuur raxiim ah, noo dembi dhaaf. fadlan haddii ay fiidiyoda ku cajab gelisay subscribe saar una sheer garee asxaabtaada si ay dad badan u gaaraan oo aan la soconin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidaas iyo nabadgelyo.